وحولي هي الكها بيرتا lagu xirtaa ma banaan tahay fanaxda ma iska xiri karaa anigoo ilkaha isku dhajinaya xuleeyahay saa'ilkan assalaamu alaykum sheekh ilig dahab ah ma gashan karaa ilkahana ma kala durkin karaa isqurxin awgeed qofka la waxa uu leeyahay sheekh biraha ilkaha lagu xirto ma banaayihiin aniga ilkahayga saas uma dheera balse labada ugu horeeya ayaa qaloocan marka waxaan rabaa inaan biro ku xirto ilkaha birta lagu xiray sababta loogu xiray ku xiranta arabtu ama culimada markay hadlayaan arabtu tabriidul asnaan bay yiraahdaan ilkuhu طبعا dadku iyagoo yar yar markay dhashaan ilkuhuna waa yar yar yihiin markay ilkuhu dhacaan ay soo baxaan kuwii soo baxay kuwii hore kuwa ka waaweyn baa soo baxa markay soo baxaanna booskii baa ciriiri ku noqdo la ekaan waaye oo iskor fuulaan marka ama qaarkood iyagoon dhicin baa intii la ridi waaye markay jilceen baa kuwii kalena ka soo hoos baxaan foolxumana waa yeeshaan isdulsaarkaana way yeeshaan lakabyo cuntada iyo waxyaabo badan intay kaydsadaan waxyaabo ilkihii durba dhaawacaya keena way keenaan marka qaarkoodna xanuun way keenaan mar haddii ilkihii isfuulfuulka iyo wax lamida ay yihiin oo ceeb uusan ku dhalanin qofkoo ilkahan soo baxay ka timid lagu hagaajinayo ama xanuun iyo wax jira lagu daweynayo dhibaato ma laha laakiin ilkaha inaan la qorqorin weeye qayb waa la saari karaa laakiin ilkaha in la qorqoroo la dhuudhuuboo la yaryareeyo walmutafallijaati lilxusni waay kuwii fanaxda samaysanaya iyo ilkaha kuwii qorqoraya kuwa xadiid gaara ku soo aroorayo lama ogola asalku waxa weeyaan dahabka isticmaalkiisu ragga muslimiinta xaaraan buu ka yahay dumarkana waa u bannaayay nabigeena sallallahu alayhi wasallam xadiidkiisa wuxuu ku leeyahay uhilla adh-dhahabu wal-hariiru liinaathi ummati wa hurrima ala dhukuriha dahabka iyo xariirta waxa loo baneeyay ummadayda inteeda dhadiga ah inteeda dumarka ah inteeda labkeeda iyo raggeedana inteeda labka iyo raggeedana waa laga xarimay buu nabigu sallallahu alayhi wasallam ahmad ibn nasaa'i baa soo saaray min xadiith abi muusa wana xadiith saxiix ah sidaas daraadeed sinama raggu uma isticmaali karaan dahabka ilka dahab ah ma gashan kartid adoo nin ah san dahaba ma gashan kartid silsilad dahaba ma gashan kartid ma banaana dahabka looma ogola ragga muslimiinta illa li daruura inay daruura batimaada mooyo daruura maxaa noqon kara daruura waxa noqon kara in meeshii iligu ka dhacay laga maarmaanka ah in ay qaban weydo ilig kala ba qaban waayo yani ilkaha kale la geliyo oo dhan ayna qabsanaynin ama ay urayaan ama ay fasaadayaan laakiin dahabku u adkaysan karo markaas oo kale waa banaan tahay maxaa yeelay waxa ku tusaya xadiidka Abdurrahman ibn Tarafa wuxuu leeyahay awowgii saxaabiga leeyahay Arfajah ibn Sa'd As'ad Arfajah ibn As'ad ayaa sankiisa la gooyay dagaal jaahiliyadii dhexmaray oo maalin la dhihi jiray yawmul kulab oo jaahiliyadii dagaal dhacay dagaalkii uu sanku ku go'ay tayib markaas wuxuu samaystay oo sanka ku kabtay oo sanka dhigtay muxuu ahaayay san oo silver ah waashan la yiraahdo qalinka san qalin abu samaystay tayib uu uray marka ilaan silverka iyo qalinku waa macdan daciifa waay marka dahabka loo fiiriyo oo muxuna way isbedeshaa marka de dhacaankii iyo muxuu ahay sanka waxba ka socda Soomaa qoyitaankii faraha badnaabay marka soo urtay nabiga sallallahu alayhi wasallam baa marka wuxuu amray an yattakhida anfan min dhahab wuxuu yiri nabiga sallallahu alayhi wasallam badalka fidada iyo silfarka waxaad ku badalataa dahab ku badalo san dahab samaysa nabiga sallallahu alayhi wasallam yani dahabku waa u adkaysan kara xadiidkaasi tirmidhi abu daawud nasaa'i baa soo saaray sheekh albaani wuxuu leeyahay xadiid xasana xadiidkaasi wuxuu tilmaamayaa hadii laga maarmi waayo waa u banaanta sida sanka ninka nabigu ugu ogolaaday iligna waa laga dhigan karaa laakiin waa daruuro way ma aragtay markii wax looga maarmo la waayo hadii kale asalku wax weeyaan ragga muslimiinta uma banaana ilig dahaba inay gashadaan dumarka Soomaha iyaga way u banaanta habaas leena hadayba kullu bisan karaan inay ilig ka dhigtaanna dhib male allahumma hadii aynan israaf keenin israafku wax weeyaan
ayadoo wax baahiya aan loo qabin xoolo fara badan iyo lacag badan iyo faanfaan iyo in la geliyo marka waa baabul israaf asalahan waa u banaantay laakiin israaf ahaan iyo dhankaas in yani ay ka timaado taxriimku waa suroobi kartaa wallahu a'lam قروح هذه ويان واحد الذي أما علاج هديتها هاي لب ماله معي الحديث أبو داود غير كورين هيان يا واحد لسعتي الواشمة والمستوشمة من غير داء ويبدل يسا واشرب سماينا زيد الدلال يعني شرهلان أما شيء هذه قفك مثلا فريه سفر زيادة الله سعته فرتب على جوين هيا الكيبا قار ماشي لو تلقى مالنا كصوب حين ولا ما أرتلوها قاتشين هيا iyo jirkiisiba maartay nabar iyo waxba gaaray ama shil buu galay qaab maartay waxa ka soo baxay ama jabitaan ama qaab aan saxayn buu kamay ama qalitaanka lagu sameeyo jirki ayaa qaab fool xumaan marka in dib loo hagaajiyo oo sidii rabbi u khalqay dib loogu hagaajiyo mid dib male ee waxa la diidan yahay asagoo waxba qabin isbedelkay gabadhu ay sameynayso intaas oo dhan waa lacnad rabbi baa ku dhacday idan halkan waxaanu garanaynaa lacnad rabbi hadii la sheegayna waa kabiiro weyn weey arrinkaas كبيرة آدي وين وين أخواتي في العقيدة أرنتاس إسبدل كلا سمين هيو آد بهد بدينة وقبضي موطيل صوب حي ويان بلولي هاي شركة ذي قاب كلا يكدكتو إن وحاسوق لي إن سؤال وحكا إيمان هيسا هدي سؤال لي يلي قروح ودان قبضي ينس قروح سمية لديدي ما ممنوع بعد كريم كاسمرين هيسو إعلانكا وحيابها صordن محايم حون كيسب حون نقون waxyaaba qurxiska la ogol yahay iyo waxyaaba aan la ogolayn ba jirto culimadu daabid bay u sameeyeen wax kala saara waxay leeyihiin tagyiirkan ay gabadhu sameynayso mid baaqi oo joogta haduu yahay oo weligii bedelmaynin mamnuuc weyn laakiin wax zuulahay haduu yahay dhib mal hada cilaanka kale muddo maxayan uu joogay uu baaba'aya cilaanka kareemkan ay wajigeeda ay marsato oo maartay aan dhibaato yeelaynin oo wajiga waxyaaba huruudka gabadha wajiga ka fuula oo ama karafka leeyahdo af carabiga bimacna gabadha wajigeedii baa isbedelay oo ama way xanuunsatay ama waxa weeyaan bimururi zaman bimacna gabadhu marka hooyadu caruurta markay dhasho uur yeelato isbedel baa ku dhici almuhim midabkeedii baa isbedelay waxyaabaha wajigeedii soo fuulay ama jirkeedii marka maada haday mariso cream iyo wax intay mariso ka qaadaya labeentaas madowga ama midabka fuulay oo midabkeedii caadiga soo celinaya dib male midkaas wax dhibaato ay leedahay male midda la diidan yahay waa maada ay mariso joogta noqonaysa joogays washarkaas maartay washmigaas durdurka maada lagu tafqan waligi waa baaqi ma go'ahayo ilkaha la qorahayo ama la jarahayo ma go'ahayaan waligeed waa wax joogaya mawaada noocaas ee qurxiska uga jeedaan isbedelaynin waa mamnuuc weey أما واحد إعلانك مدير ودقمها كريمك ودقمها وحاسو دون واسكا بابي كواسو كله لما ديدنا لكن ضوابط الشريعه وين كو الى لسو إعلانك مرستي كريمك اي مرستي وحيابها واني قرينيسو او زوجكيدي عيد لو تلغلay inuu mujtamayn inta kale waa inay ka qarisaa inta kale waa inay ka qaris ضابط kaasa jira oo lagu kala xadeeyaan alxamdulillah waxay ku kala duwan xukunkeedu sababta loogu xirayo sababtu haday tahay ayb aan tabiici ahayn oo ilkuhu ay yeesheen in la zuulinayo oo ilkuhu qaabka qaarkood markay noqdaan xadkii dabiicigaana ay ka baxaan ama xanuun bay keenaan ama mararka qaarkood inay waxyaabihii galayay gudahoodii iyo dhibaato keenaan baa dhacda haday tahay sababta loogu xiray min baabil cilaaji oo izaalatu caybin ay tahay ama xanuun iyo wax lamida way banaanta haday xaragiya qurux doon tahayna ma banaana asalkana waxa loo diriishadaa nabiga kaleey salaam ilkaha la qoro markuu ka hadlahay ee uu lacnaday wuxuu yiri wal mutafallijaat lil husni dadka ilkaha qorqora qurux darteed lil husni تعليلك للحسن أي علماء وحير هذا وحلقة فائدة سنة يا وحي عن قروح يا حرقة دونا هنا علاج يا دوين يا وحلا مذا يا عيب للزولين يا باب كذا قال عي إن البنات يبغى الله يغفر بالله توفيق